wasiirka horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa soo kormeeray dambiyood ku yaala deegaanka Nasiyo ka tirsan gobolka Togdheer. wasiirka biyaha Soomaaliland ay weheliyaan barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad iyo mas'uuliyiin kale. daamkan oo hirgelisay hay'adda NRC waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan sida qaybta dararka xoolaha iyo daam ballaaran oo loogu talagalay inay ka cabaan. waxaa halkaasi ka hadlaya mas'uuliyiin ka socota hay'adda NRC iyo injineerka daamkani qoday, waxaanay ka sheekeeyeen daamkan iyo faa'iidada uu leeyahay. daamkan aanu u dhisnay Nasiye ruuxantii waa daam aad u ballaaran, wuxuu hoostaga mashruuca restore iyada fangareysay. daamka waxaa loogu talagalay inuu xilliyada abaaruhu ay dhacaan uu biyo ku filan u kaydiyo deegaanka Nasiye iyo dhulka hoostaga oo deegaan aad iyo aad u ballaaran, xoolo aad u badanna ay ku nool yihiin. muddo ayaa hay'addu mashruucan ay waday, wasaaraduna had iyo jeer gacan weyn bay ku lahayd kormeeristiisa iyo la socodkiisa. haddeer xilli gabagaba buu ku jiraa, dhammaan waa loo dhameeyay qalabkii u baahnaa oo dhan. waxyaabaha repairing u baahan ee minerkaana kuwana insha Allah waa laga shaqeyn doonaa. baaxadiis waxa weeyaan waa 88 mitir, 88 mitir iyo 50 mitir iyo 4 mitir oo hoosa. baarkan waxaa loogu talagalay inuu qaado 16 mitir kuub, waxaana uu isku noqonayaa marka saa loo xisaabiyo 85,000 oo foosto ayaa loogu talagalay. waanu dhammaystiray. isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Togdheer ayaa xusay sida lagu baahnaa daamkan. qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa iyaguna dhinacooda soo dhaweeyay. daamka maanta degmada Nasiye ka samaysmay oo wali dhamaystirkiisii wax ay ka dhiman yihiin, mas'uuliyadiisii inaanu qaadnay aniga iyo gudoomiyaha degmadu. wixii halka mas'uuliyada inaanu anagu mas'uuliyadda korka u ridano qaadno ka mas'uulay saacada marka laga bilaabo. gudoomiyaha degmadu anaguna aan ku kormeerayo mas'uuliyadda guudna aan leeyahay, waanu aqbalay, waanu qaadnay, waa ku mahadsantiin. waa ballan qaadnay arrinta wasiirku noo soo jeediyay, aad iyo aadna iskaga xil saaraynaa, waa ku tacabgalaynaa, waa mahadsantiin. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa halkaasi ka hadlay. waa dadaalay raggii qoday hase yeeshee duruufaha runtii iyo qoladii muxuu ahaa reer Nasiyo doonaysa in ballayga ay biyo u galaan oo doonayeen inay ka cabaan oo laga xidhin ayaa keentay duruuftan. waan ka wada hadalnay injineerkii qaatay qandaraaska iyo cidii qodaysay inaan wada qiimayno marka biyaha si laga dhameeyo ayaanu isla qaadanay. imika waa daam weyn, waxa weeyaan 88 iyo 50 oo dhinaca kala iyo 4 mitir oo hoosa. wuxuu qaadi kara waa garanaysaan 80,000 oo foosto ayuu qaadaya baarkaasi. jiilaal iyo abaar dheeraata intaba waa laga baxaya. wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo gacan ku hayn. odayga muxuu ahaa degmada ama gudoomiyaha degmada oo ninka aad arkaysaana ayaanu arrintaa u xil saaray. waxa isagana u mas'uul ah oo arrintaa ku kormeeraya ku ilaalinaya isuduwaha iyaga gobolka Togdheer waa Rashiid hawsha iyada ah adaa ku kormeeraya oo hawsha ku ogaanayna ilaa iyo dhamaystirka injineerka shirkadii qaatay asaan u dhamaystirayso riboorka idinkaan idinka rabnaa. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa hay'adda NRC kala wareegay daambiyooda ay ka hirgelisay deegaanka Harada oo wasiirku si rasmi ah daamkaasi ula wareegay. waxaa halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlay afka hay'adda NRC iyo mas'uuliyiin kale, waxa aanay sheegeen sida lagu baahnaa daamkan. daamkan wuxuu ka mid yahay 2 daam oo waaweyn oo aanu ka samaynay hawdka Burco. mid ahaan isaga waa kii aan imika soo marnay, kana waa kii labaad. 2 shirkadood oo waaweyn oo aad dhulka u yaqaana baa ka shaqeeyay. cabirka wuxuu la mid yahay cabir ahaan sidii kii aan ku soo aragnay Nasiye, waa 88 iyo 50 oo cabirka inner dimension waxa la yaqaana gudaha hadii dhinacyada uu ka sii weeyaan karaa. maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa dhinacooda halkaasi ka hadlay. halka waxa laga qabtay shaqo biyood oo aad u qiimo badan
meel walba waxaa laga sameeyey dhaamam ay samaysay NRC iyo dhaamam kale oo ay hay'ado kaleba sameeyeen haddaan isira dul taagna dhaamamka ay samaysay NRC sida la sheegay dhaam walba waxaa ku baxay lacag gaadhaysa $108,000 haddaanay kaba badnayn sidaa aad sheegteen cid ilaalisa waa u baahan yahay dhaamku oo waashmaan ka noqota oo dawladdu ku og tahay oo ay dawladda shaqaalaheeda ka mid noqdo wuu u baahan yahay waayo sidan lagaga tegi kari maayo qaar hore oo sidan lagaga tegay baan aragnay nasiibna waa u hesheen dee mar haddaa 80,000 oo foosto halkaa ay idiin gelayso dee nasiib baa u leeyahay reer haro inay ilaashataanna waa fiican tahay wasiirkuna waa ku mahadsan yahay cid allaale ciddii ka qayb qaadatayna waan u mahad celinaynaa haddii aanu nahay golaha deegaanka degmada Burco marka waa jecel lahay waxyaabaha loo qabanayo aad iyo aad iyo aad bay wax noogu tarayna anaga laftigayga wasiir waad mahadsan tahay aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa idinkuna ilaashada meesha hantida ilaashada waxba idin tarays alla helaydiyo kale haddaynu taa haysano tii dhaweedayna dhaaftay 17 haddaynu haysano dee muxuu ahaa haariyeen joogi dee waa wala arag wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa si rasmi ah dhaamkaasi ula wareegay waxa aanu sheegay in dhaamkan ay dabooli doono baahida biyaha deegaankan harada waa baahi horeeyay ee ay fuliso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan ku dari doonaa in badan oo kale waxaynu u baahanahay hantida inta leege muxuu ahaa ummadda reer Soomaaliland ay u qoondaysay halka ama xukuumaddu ay u qoondaysay deegaanadan guud ahaanba inay ilaashadaan baa loo baahan yahay hawsha hay'adda NRC oo dhaamkan iyo kii aanu ka nimadeena siiyaba qoday bixisay qandaraaskana ay somtara qaadatay oo ay fulisay aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaa uguna mahad celinaynaa waananu kala wareegnay kan ka kale inta aynu hawsha dhamaystirayno way isla eegaynaa laakiin ka anaga la wareegnay maanta laga bilaabo sidoo kalena wasiirka biyaha Soomaaliland ayaa soo kormeeray xarumo kala duwan oo dhinaca biyaha sida barkad weyn oo ka socota deegaanka harada iyo xarunta xanaanada ee deegaankaasi waxaanu soo indheeyay sida ay u socdaan mashaariicdan iyo kuwa dhamaaday waxaana soo dhaweeyay dadka ku nool deegaankaasi oo xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay wax qabadka muuqda ee ka hirgelisay deegaanka harada dhaamkan ayaa waxa uu noqon doonaa mid wax weyn ka tara baahida biyaha ee deegaanka Nasiye oo laga hirgeliyay dhaamkan وخضر محمود خضر قوله إيا صور قاضي عبد عمر جبريل تلفزيون كقرن كسومالي لان ديجان كنصية أو كتسن قبل كتقدر